Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaal YouTube channelkeena. Maanta waxaan soo gudbin doonaa 10 nin ama 10 qof ee ugu taajirsan dunida oo dhan iyo lacagaha ay haystaan saamiyada suuqa maaliyadeedka markii loo eego ee nala sii joog dhamaadka. Waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay ee soo booqato YouTube channelka inaad subscribe saartid, like-na noo saar videoga, noona sii share garee aad iyo aad baa u mahadsantahay. Bal aan ku soconno 10 qof ee ugu taajirsan dunida. kaalinta tobnaad waxaa noo soo gelaya ninka lagu magacaabo Mukesh Ambani. lacagtiisa waxaa loo qiyaasaa 92 bilyan markii loo eego saamiyada suuqyada. waa hogaamiyaha Reliance Industries ee India, shirkad xooggan oo ka shaqeysa warshadaha tamarta, isgaarsiinta iyo tafaariiqda. kaalinta sagaalaad waxaa noo soo gelaya Steffi Ballmer. waxa uu haystaa 95 bilyan. waa madaxa hore ee Microsoft iyo milkiilaha kooxda basketballka ee Los Angeles Clippers. kaalinta sideedaad waxaa ku jiro Sergey Brin, sidoo kale asagana lacagtiisu waa 95 bilyan, waana aasaasaha Google sida Larry Page oo ah ninka kaalinta toddobaad ku jiro, waana isku lacag labadooda, waxayna aasaaseen shirkadda Google. kaalinta toddobaad waxaa soo galay Larry Page oo ah ninka hadda soo sheegnay, lacagtiisuna waa 100 bilyan, waana aasaasaha Google. xilligan waxay ka shaqeeyaan shirkadda Alphabet, waana ninka kaalinta toddobaad noo soo gelaya. kaalinta lixaadna waxaa noo soo galaya Larry Ellison, lacagtiisana waxaa lagu qiyaasaa 105 bilyan, waana aasaasaha Oracle Corporation. kaalinta shanaadna waxaa noo soo galaya Warren Buffett, lacagtiisuna waa 110 bilyan, waana hogaamiyaha Berkshire Hathaway, waana shirkad maalgashi ah. kaalinta afaraad waxaa noo soo galaya Bill Gates, 114 bilyan ayaa lagu qiyaasaa hantidiisa, waana aasaasaha shirkadda Microsoft. haddana waxa uu ka shaqeeyaa hay'adda Bill and Melinda Gates Foundation. kaalinta saddexaadna waxaa noo soo gelaya Jeff Bezos, lacagtiisana waxaa lagu qiyaasaa 150 bilyan, waana aasaasaha Amazon, waxayna hadda hogaamisaa shirkadda Blue Origin ee isku dayeysa in lagu hirgeliyo safar xidigeed. kaalinta labaadna waxaa soo gelaya Bernard Arnault iyo familkiisa oo u dhashay dalka Faransiiska, waana madaxda shirkadda LVMH oo loo soo gaabiyey Louis Vuitton Moet Hennessy oo ah shirkad weyn oo soo saarta alaabooyinka luxury-ka ah. haddaba qiyaas ninka kaalinta koowaad ku jiro, waxaad haysataa 10 sekin, bal uga soo jawaab dhanka iyo commentiga aragtidaada. haddaba waxaa kaalinta koowaad ku jira Elon Musk oo ah nin u dhashay dalka Mareykanka, waxa uuna haystaa lacag kor u dhaafaysa 240 bilyan, waxa uuna milkiile ka yahay shirkadaha CEO ee Tesla iyo shirkado kale. ugu dambeyn halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa, adigoo tixgelinaya waqtiga lagu bixiyay muuqaalka. fadlan like noo saar, waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka aad daawatay. waxaan la socodsiinaa anigoo Qadar Maxamed Xasan ah. tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.